gudoomiye Cumar ku soo dhawow Astaan Sports koobka adduunka bilaabmi doona markii 22aad iyadoo lagu qabanayo dalka Qatar 32 xul baa sanadkan ka qayb galaya 830 ciyaartoy tiro lagu tilmaamayna way ka qayb galayaan sanadkan koobka adduunka maxaad leedahay uu kaga duwan yahay koobka adduunka hore loo ciyaari jiray bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ma santahay biinta saaxiib oo aan dhawahay runtii sida aad sheegtay koobka adduunka dhawaan inoo bilaabmaya su'aasha dii wadiisay muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore runtii waxyaabo badan oo kaga duwan yahay jira waa markii koowaad dal Carbeed runtii lagu qabto waana markii koowaad dal Islaam ah runtii martigeliyaan tartanka waxyaabaha kale sanadkii hore kaga duwan yahay waxa kamid ah xilligan la ciyaarayo oo aan la ciyaari jirin sanadadii ka horeeyay cimilada darteed iyo waxyaabaha kale kaga duwan yahay waxa kamid ah sanadkan ciyaartoy waaweyn oo magac ku leh oo markoodii u dambeeyay runtii tartanka ciyaaraya koobka adduunka oo macsalaameynaya oo waxa weeye nin walba doonayo inuu taariikhda waxa weeye taariikhda uu sii qaato oo ay kamid yihiin Ronaldo Messi ciyaartoy waaweyn oo markoodii u dambeeyay runtii waxa kale oo kaga duwan yahay sanadkii hore waxa weeye ciyaartoy waxa weeye waaweyn oo iyaguna waxa weeye aan ka soo qayb galin tartankii qaar laga tagay iyo qaar dhaawac ahba waxa iyaguna waxa weeye ragga laga tagay waxa kamid ah aan ka qayb galin koobka James oo kale Ingiriiska Chilwell waxa weeye Firmino ciyaartoy waaweyn Ramos De Gea ciyaartoy Kantara ciyaartoy waaweyn oo magac lahayo laga filayay inay ka dhex muuqdaan oo runtii aan sanadkan waxa iyaguna dhaawacyo ku seegaya oo koobkan ka qayb qaadaneen waxa weeye Pogba Kante ciyaartoy iyaguna runtii xaaladahaas saameeyay runtii Cumar 32 kan xul sanadkan yaa ugu cadcad baad leedahay ku guuleysiga koobka adduunka runtii waxaan oran karaa markaynu Europe iyo Latin America kala qaadno aniga shakhsiyan waxay la tahay Latin America Argentina iyo Brazil runtii wax xoog xaggan Europe hadaan u imaado Jarmalka iyo France iyo Spain runtii saddexda kooxoodna iyaguna wax weeye runtii waa kooxahan isleeyahay waxay gaari karaan kama dambaysta Afrikaankana waxaan u maleynayaa sanadkan kooxda Cameroon inay xul Cameroon inay wax weeye soo yara dhawaan doonto meelaha kama dambaysta hay ma kala steedna Cumar dadka kubadda cagta aad ku xisay Soomaalida laba xul bay aad ugu badiyeen waana xulka Portugal iyo xulka dalka Argentina taasoo waliba u sababanaysa ciyaartooyga Cristiano Ronaldo iyo ciyaartooyga Leo Messi oo taageerashooda kala raacayaan adiga ka Cumar ahaan labada ciyaartooy keebaad leedahay xulkiisa wuxuu geen karaa meel kama dambaysa ama meel wanaagsan oo dadka taageerasho rajo weyn ay ka qabi karaan marka Soomaalisu horta intaana saadaalin labada xul hadii mid walba groupkiisa uu kaga soo baxo kaalinta koobaad halka kaliya isku arki karaan waa finalka marka halka chance bay ku haystaan oo labadoodu waxa weeye inay xagga kama dambaysta isagu iman karayaan waan ognahayo xulka Argentina runtii ciyaartoy badan oo dhalinyaro ah ayaa waxa weeye oo fiican buu sanadkan haystaa dhowr iyo 30 ciyaarood buu ambita yahay oo laga badin waxa kale oo dheer in koobkii Latin America ay soo qaadeen marka sanadkan in xulka Argentina uu ka xoog badan yahay waxa weeye ciyaartoydu haysto oo waxa weeye Messi ciyaartoydan imika ku hareeraysan runtii iyo muddada inta la eegan laga badin waxayna tusaysaa in waxa weeye xulka Argentina sanadkan aan koox la dhayalsan karaya inaanu ahayn Portugiisku qudhiisu ciyaartoy fiican uu haystaa Ronaldo oo hogaamiye ah oo arkaynayo sanadkan xaalad fiican runtii ku muujirin hadii noqoto waynu ognahay imika Manchester wuxuu soo dhaliyay gabigeedaba 3 gool buu dhaliyay horyaalkana hal iyo 2 koob uu European ka u dhaliyay xaalad abaareed ku jira runtii laakiin waa laacib markasta wax weeye gool laga filan karayo in kastaan waqti fiican ku jirin koox fiican haysta aniga labada xul markaan isbarbar dhigo waxaan isleeyahay xulka Argentina ayaa tartanka ku yara dambeyn doona